بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وكلن كني تضبيط طبناد برامج كي نكجا ورميني بشهر رمضان بركيسن أحكام تيدا آداب تيدا إيو فضائل كقف كمسلم كفايد سنة. حين نكسو قادن إن كلن ككن waxyaalaha qofku bishan ka faa'iideysanaya waxaa ka mid ah i'tikaafka la i'tikaafo tobanka dambe waa sunno ka mid ah sunnooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo i'tikaafka waxaa loola jeedaa in masaajidka lagu nagaado biniyati alcibaada isagoo qofku cibaado u niyeysan ayaa loola jeedaa xukunkiisu waa sunne oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ummadiisa u jideeyo u sunneeyey waxay culimadu u qaybiyaan i'tikaafka i'tikaaf caam ah iyo mid khaas ah i'tikaaf guud baa jiro oo waqti walba iska furan qofku markastuu masaajid soo galo oo uu ku nagaado hal ilbiriqsina ha noqotee isla markaana uu niyeysto i'tikaaf iyo cibaado waa i'tikaaf ama rabadaan ha ahaato ama rabadaan yay ahaanin اعتكافka khaaska aynu maanta ka hadlaynaana waa اعتikaafka la اعtikaafo tobanka u dambeeya bisha Ramadaan nabigu عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأواخر من رمضان واعتكف بعده أزواجه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام tobanka dambe waa اعtikaafay xaasaskiisa iyo bulshada iyo ummaduna sidaasay sameeyeen markii nabigu dhintay عليه الصلاة والسلام اعتكافka tobanka dambe wuxuu bilaabanayaa maalinta bisha 20ka hore dhamaadaan oo macnaheedu yahay 20ka Ramadaan marka qoraxdiisu dhacdo oo habeenka 21 uu noqonayo ayuu bilaabanayaa intee buu ku eg yahay maalinka u dambeeya Ramadaan marka qoraxdiisu dhacdo ayuu ku eg yahay culimada qaar baa waxay yiraahdaan xoogaa waxa iska fiican inuu habeenkan iska joogo أو ciidka u baxo markuu ciidka u baxana ehelkiisa iyo xaafadiisa sii aado ayaa wanaagsan i'tikaafka waxyaalo buriya baa jira oo qofkii i'tikaafsanaa i'tikaafkii ka burinaya waxyaalaha buriya waxaa ka mid ah inuu qofku masaajid ka baxo jidhkiisa oo dhan masaajid ka saaro isagoon cudurdaar lahayn dee wuxuu cudurdaari jiraanoo suulibu u baahan yahay inuu masaajidka banaankiisa u aado wuxuu u baahan yahay inuu wuxuu cunay wuxuu cabo soo qaato oo cid u keenayso oo ka kaalmeynaysa ma haysto waxyaalaha cudurdaarka saasoo kale waa loo ogol yahay laakiin cudurdaar la'aan inuu baxo way burinaysaa i'tikaafkii qofku way burinaysaa waxaa ka mid ah i'tikaafkii qodobka labaad ee burinaya jimaaci iyo gogoshii ninkii xaaskiisa dhex marta gogoshiyaasi way burinaysaa markaa i'tikaafku way burinaysaa waxaa ka mid ah biyihii taranka inay ku yimaadaan isaga ikhtiyaarkiisa iyo doonidiisa sidoo kale weeye way burinaysaa i'tikaafki way burinaysaa waxaa ka mid ah gabadha in labadii dhiiggii caadada ama dhiiggii dhalmadu ay ku yimaadaan way burinayaan i'tikaafki wuu ka burayaa waxay ka dhigan tahay marka haddii ay dhiiggii dhabar furanka leedahay ama ay dhabar furan qabto gabadhu way i'tikaafi kartaa laakiin dhiiggii caadada ama dhiiggii dhalmadu hadduu socdo i'tikaaf kama asaxayo haddii iyadoo i'tikaafsan uu ku yimaadana waa inay baxdo masaajidka ay ka baxdo weeyaan waxaa ka mid ah riddadii qofku inuu diintiiba ka baxo walciyaadu billaah uu burinayaa i'tikaafkii waxaynu u dambaysiinaynaa aadaab baa la rabaa qofka i'tikaafaya in uu ku dadaalo i'tikaafku waa cibaade cibaadadaas waxay u baahan tahay ikhlaas iyo inay lilaahi ka tahay qofka ayaa la doonayaa oo uusan u i'tikaafin dadkii kale way i'tikaafeen adiguna i'tikaaf uusan u i'tikaafin ayaama meesha xoogaa ku soo naso laakiin uu cibaado iyo lilaahi iyo ikhlaas inuu i'tikaafa baa la doonayaa adabta labaad oo raba in la ilaaliyo waxa weeye qofku inuu ku dadaalo tobanka bari oo i'tikaafsan yahay cibaadada iyo sidii uu u waafiqi lahaa laylatul qadr اعتكافك وعباده
qofkaasi muddada 10 beri ama 9 beri ah wuxuu adduunkiisii iyo xoolihiisii iyo bulshadii uga soo dhex baxay inuu ilaahay la keliyoobo oo alkhulwa maca allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ay isla keliyoobaan marka waxaa la doonayaa inuu ka faa'iidaysto wakhtiga oo uusan samaynin sida dad badan oo ictikaafaya ay sameeyaanoo habeenkiina la sheekaysto maalinkiina la hurdo sax maaha mar haddaad ictikaaf u soo go'day oo masaajidka aad ugu soo xarootay waxaa lagaa doonayaa inaad ictikaaftid si dhab ah oo aad cibaadada ku dadaasho wakhtigaaga u qaybisid wakhti aad qur'aan akhrinaysid wakhti aad ducaysanaysid wakhti aad maaragtay khayrkana ka faa'iidaysanaysid waxoogaa yarood nasanaysid ood yaro seexanaysid laakiin aad meeshaa dee hurdo uunu joogin waxaynu u dambaysiinaynaa oo ku khatimaynaa aadaabta looga baahanya qofka ictikaafaya waxaa ka mid ah masaajidka uu ku ictikaafayo nadaafadiisa iyo xuquuqdii masjidku lahaa inuu ilaaliyo masaajiddu waa buyuutullah waa guryihii ilaahay qof walba muslim oo dhex joogaayo waa dayf iyo marti ilaahay weeye markaa marti edab wanaagsan oo ilaahay ka edabsata inuu noqdo oo maadaama masaajidkii laga inuu wax ku dhex cunayo wax ku dhex cabayo oo dhex degan yahay waxaa laga rabaa inuu nadaafadii masaajidka ilaaliyo iyo xurmadii masaajidka ilaahay waxaynu weydiisanaa ictikaafka iyo acmaasha kale khayrkaaba inta ilaahay ka aqbalay inuu ilaahay nagu daro wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sal slam